bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa janalka xogta media waxaad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diradda ku saari doono ciidankii tababarka loogu qaaday dalka Eritrea ayaa dib loogu soo celinaya magaalada caasimadda Muqdisho farmaajo iyo faad ayaa ciidamadaasi qorshe kala halkan ayaa daawadayaal idinku soo gudbi doona warbixintan ayaan idinku soo koobi doona hayeeshee intaan guda gelin waxaan ka codsanayaa muuqaalkan la gareeso la wadaagta asxaabtaada adigoo subscribe inoo saaraya channelka oo furan ee gambalka si durbadii baad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faada lagu gudbiya commentiga aragtidaada inagula wadaag markaana daawada waxaad ku soo dhawaataa warbixinteena waxaa dhawaan dalka dib loogu soo celin doonaa ciidankii muranka badan dhaliya ee tababarka loogu qaaday wadanka Eritrea sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ama generaalo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed horaanta bishan February ayaa la filayaa in ciidankaasi la keeno magaalada caasimadda Muqdisho waxaana loo diyaariyay in la dejiyo xerada General Gordon halkaas oo wixii deganaa lagu amray in ay ka guuraan taliyaha ciidanka dhulka General Maxamed Taliil Bixi ayaa degan xeradaasi balse isaga iyo xubnihii kale ee deganaa xerada General Gordon waxaa loo sheegay in ay baneeyaan si halkaasi loo dejiyo ciidanka laga keenayo dalka Eritrea sida ay saraakiishan inoo xaqiijiyeen tirada ciidanka laga keenayo Eritrea waxay gaaraysaa 7,000 oo askari waxay u qaybsan yihiin 5,500 oo ah ciidanka xoogga dalka iyo 1,500 oo isugu jira booliis iyo nabad sugid qaybta ciidanka xoogga dalka ee 5,500 waxa hal guuto oo kamid loo tababaray in ay noqdaan ciidanka badda 12 doomood oo hubeysan ayay wataan guutadan waxaa la filayaa in ay Muqdisho degaan halka inta kale ee markaasi infantryga qaar loo isticmaali doono in ay furaan wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo qaarna dhanka Jubbooyinka loo diro waxaa sidaas xog ku bixiyay saraakiisha aan la hadalnay ciidanka qaybtiisa la dejinayo xerada General Gordon waxaa toddobaadkii hore la siiyay oo loo diyaariyay lambaradooda ciidanka waxaana mushaarkooda bixin doonta dawladda Qatar sida aan xogta ku helnay isla markaana ay noo soo dusiyeen saraakiil ama generaalo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saraakiishan waxay sheegeen in askari walba oo kamid ah ciidankaasi la soo wado uu mushaarkiisa noqon doono $300 taas oo ka dhigan in ay xagga mushaarka la simi doonaan ciidanka la yiraahdo Gorgor oo qaato mushaar aan $300 Gorgor waxay 200 ka helaan dawladda Turkiga halka $100 ay ka qaataan dhanka iyo dawladda federaalka Soomaaliya ciidanka Soomaalida ee ku sugan wadanka Eritrea waxaa dhawaan loo jeediyay eedeyn culus shacabka ku nool gobolka Tigray ee waqooyiga wadanka Itoobiya ayaa sheegay in ciidanka Soomaaliya ay xasuuq ka geysteen gobolkooda wargeyska Canada ka soo baxa oo la yiraahdo Globe and Mail ayaa marqaatiyaal u wareystay waxay sheegeen in militariga Soomaaliya ee la socday ciidanka Eritrea ay xasuuq badan ka geysteen gobolka Tigray bilii hore intii uu dagaalku ka socday gobolkaasi ciidamadan tababarka loogu qaaday dalka Eritrea horaan isla markaana iminka la soo celinayo ayaa la filayaa in ay la wareegaan gacan ku haynta Villa Soomaaliya sidoo kale waxaa la filayaa in ay garab iyo gaashaanba u noqdaan madaxweynihii hore ee dalka Farmaajo iyo sidoo kale la taliyihiisa amniga qaranka Faad Yaasiin Xaaji Daa'id cabsi dagaal ayaa iminka ka jirta magaalada caasimadda Muqdisho shacab weynaha Soomaaliyeed waxa ay walaac ka muujinayaan ciidamadaasi laga keenayo dalka Eritrea oo la damacsan yahay laga soo dejiyo garoonka Aadan Cadde ee magaalada caasimadda Muqdisho dadka cabsida ay ku jirto waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo isaga wax aragti ah ku lahayn ciidamadaasi qaadidooda maadaama arintu ay ka horeysay isla markaana uu markaasi arintan wax ka ogaa Ra'iisul Wasaarihii isaga ka horeeyay Xasan Cali Khayre Faad Yaasiin Xaaji Daa'id ayaa amray in ciidankan laga keeno dalka Eritrea isla markaana la duldhigo xafiiska Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble kaasi oo khilaaf siyaasadeed iminka kala dhaxeeyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ciidamadan ayaa waxay yihiin kuwa lagu soo tababaray dalkaasi Eritrea waxaa la soo warinayaa in ay xasuuq ka geysteen gobolka Tigray cadeemo fara badan oo la helay awgood sida uu qoray wargeyska Globe and Mail ee ka soo baxa dalka Canada waxaa la daafuray cadeemo cusub oo ku saabsan
gabood falo la sheegay in ciidamo Soomaali ah ka geysteen dagaalka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya kaas oo tooshka ku ifinaya isbahaysiga military ee ka soo ifbaxaya geeska Afrika. wargeyska Globe and Mail ayaa helay goob joogayaal ka waramaya xasuuqii ay ciidamada Soomaalida ee ku dhex milmay ciidamada Eritrea ka geysteen gobolka Tigray bilihii hore ee dagaalka. cadeymaan cusub ayaa markaasi dhalinaya su'aalo walaac leh oo ku saabsan isbahaysi military oo qarsoon oo u dhaxeeyay Itoobiya, Eritrea iyo Soomaaliya kaas oo dhimasho iyo burbur u geystay gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya. Soomaaliya ayaa hore u beenisay in ciidamadeeda la geeyo gobolka Tigray, balse baaritaanka The Globe and Mail ayaa markii ugu horeysay faahfaahin dheer ka bixiyay dilal rayid ah oo ay geysteen asgar Soomaali ah oo gacan saar la leh ciidamada Eritrea ee ku sugan gobolka. Gabriel Sadig oo ah 52 jir beeraley ah oo ka soo jeeda tuulada Zebengandana ee waqooyiga galbeed Tigray ayaa sheegay in wadooyinka boorka badan ee tuuladiisa ay daadsanaayeen meedadka wadaado madaxa laga jaray bishii December 2020 dhowr toddobaad kadib markii uu dagaalka bilowday. asgar Soomaali ah oo ka barbar shaqeynayay ciidamada Eritrea ee tuulada qabsaday ayaa waxay beegsadeen kaniisado oo ay dileen wadaadada ayuu yiri waxay u gooraceen sida digaaga ayuu u sheegay The Globe and Mail. ciidamada Soomaaliya iyo Eritrea ayaa tuulada ku sugnaa ilaa dabayaaqadii bishii Febraayo sida uu sheegay Gabriel Sadig oo inta badan u cararay keemaha iyo buuraha ku xeeran tuulada si uu uga badbaado weeraro lagu soo qaaday xilligaasi. Globe and Mail waxay la hadashay daraasiin ka badbaaday oo goobjoog u ahaa xasuuqii ka dhacay 6 tuulo oo Tigray ah halkaas oo ay joogeen ciidamada Soomaaliya intii u dhaxaysay December 2020 iyo dabayaaqadii Febraayo 2021. dadka ka badbaaday weerarka ayaa sheegay in ciidamada Soomaalida ay wateen dareeska ciidamada Eritrea balse ay si cad u garanayeen in ay yihiin Soomaali sabab la xiriira afkooda iyo muuqaalkooda. si ka duwan Eritreanka kuma ay hadli karin luqadda lagaga hadlo Tigrayga iyo inta badan Eritrea. goobjoogayaal ayaa sheegay in ay sidoo kale maqleen ciidamada Eritrea oo ku tilmaamaya in ay yihiin Soomaali. sanadkii hore qaramada midoobay iyo saraakiil Mareykan ah ayaa sheegay in ay heleen xog ku saabsan in ciidamo Soomaali ah ay ku sugan yihiin gobolka Tigray balse faahfaahin yar ayaa laga helay. waalidiin Soomaaliyeed ayaa sanadkii hore dhowr jeer banaanbaxyo ka dhigay magaalada caasimadda Muqdisho iyo meelo kale oo ka tirsan Soomaaliya iyagoo ka cabanayay in wiilashooda lagu amray in ay ka dagaalamaan Tigrayga kadib markii hore tababar ciidan loogu diray dalka Eritrea. boqolaal asgari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in lagu dilay dagaalka. ilaa 10,000 oo asgari oo Soomaali ah ayaa la geeyay Tigrayga sida ay inoo sheegeen saraakiisha hadda iyo kuwii hore ee Itoobiya oo aanu la hadalnay isla markaana uu wareystay The Globe and Mail. Globe kuwaas oo diiday in magacyadooda la xuso. ilaa hadda wax yar oo tafaasiil lagama hayo dhaqdhaqaaqa Soomaalida Tigrayga, laakiin dadkii ka badbaaday weerarka ayaa u sheegay The Globe and Mail in ciidamada Soomaaliya ee boqolaal qof oo rayid ah ku xasuuqeen tuulooyinka ay maamulaan ciidamada Eritrea iyagoo inta badan qoorta ka gooyay. tuulooyinkaasi ayaa la sheegay in aysan joogin ciidamo Itoobiyaan ah ma aysan tusin wax naxariis ah ayuu yiri Berged oo ah 32 jir beeraley ah. Eritreanka ayaa su'aalo ku weydiinaya ka hor intaanay ku dilin, laakiin ciidamada Soomaaliya si aan kala sooc lahayn ayay dadka u laayeen. Berged ayaa xusay in mid ka mid ah dadkii ay dariska ahaayeen oo 76 jir ahaa wadaad oo ka mid ah dadka ay dileen ciidamada Soomaaliya sida uu sheegay. Kebrom oo 37 jir ah oo ka soo cararay tuulada Hamlo bishii Janaayo ayaa sheegay in qorgoynta ay geysteen ciidamada Soomaaliya ay noqotay xaqiiqo maalinlaha tuuladiisa. kaniisadaha waxaa deganaa ciidamada ayuu yiri waxay gubeen buugaagta quduuska ah iyo waxyaalaha quduuska ah. kaniisadaha ayaa noqday meelaha ugu ammaanka xun. dadkii tuulooyinka deganaa waxay joojiyeen in ay tagaan kaniisadaha sababtoo ah ciidamada Soomaaliya waxay dilaan qofkii ay ka helaan kaniisadaha ayuu yiri Kebrom. sida laga soo xigtay saraakiishii hore ee Itoobiya, ciidamada ugu badan ee Soomaalida ayaa ka soo tallaabay xadka Eritrea oo galay galbeedka Tigrayga toddobaadyadii ugu horeeyay ee dagaalka. waxay sheegeen in ciidamada Soomaaliya oo ka amar qaata ciidamada Eritrea ay hore u joogeen dhufaysyo ku dhow xadka ka hor inta uusan dagaalku bilaaban.
shakilaan waxay ka qayb qaateen dagaalka, ayuu yidhi Gabriel Mescal Kasa oo ahaa madaxa shaqaalaha ee maamulka kumeel gaarka ee Tigreega oo ay dowladda Itoobiya magacowday kadib markii ay la wareegtay gacan ku haynta gobolka Bilii hore ee dagaalka. Markii dambe wuxuu u baxsaday dibadda isagoo u baqay ammaankiisa markii saraakiisha Itoobiya ay ku dhaleeceeyeen guulihii ay Tigreega ka gaareen gobolka. Master Gabriel Mescal Kasa ayaa sheegay in uu wax ka ogaa in Soomaalida la keenayo safaradii uu ku tagay Tigreega iyo kulamadii gaarka ahaa ee uu la qaatay madaxda ugu sareysay Itoobiya iyo generaalada militariga. Dhammaan annaga oo ah mas'uuliyiin sarsare waanu ogeyn arrintaasi, ayuu u sheegay The Globe and Mail. ciidanka Soomaaliyeed waxay tababar ku qaateen xerada Sawa ee dalka Eritrea taas oo ka dhalatay heshiis militari oo dhex gudaana daawadayaal waa inaga intaa warbixintii aad ka daawanayseen janalka xogta media. haddii aad daawatay laakiin oo subscribe inoo sar janalka furaga balaalkaasi durbadii baad u heshay muuqaaladan halkaan soo gelino. sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagula wadaag tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal intee dib isugu kulmi doono nabadgelyo.